tartankan ciyaaraha oo lagu furay ciyaartooygii ka socday gobolada Togdheer iyo Daadmareer ayaa soo bandhigay ciyaar aad u xiiso badan oo isugu jirta weerar iyo weerar celin waxaana qaybtii koowaad ee ciyaarta ku dhamaatay eber hase yeeshee qaybtii dambe ee ciyaarta ayaa daqiiqadii 75aad weeraryahanada gobolka Daadmareer ay si fiican isku heleen jaanta kadibna ciyaaryahankii lambarka 22aad u sitay gobolka Daadmareer uu gool qurux badan leh ka dhaliyay ciyaaryahanada gobolka Togdheer balse weeraro istaba jooga ay soo qaadeen ciyaaryahanka gobolka Togdheer kuma ay guuleysan inay wax gool ah ka dhaliyaan ciyaaryahanada gobolka Daadmareer waxayna ciyaartii ku dhamaatay hal gool oo guushu ku raacday gobolka ayaa daqiiqadii 75aad weeraryahanada gobolka Daadmareer ay si fiican isku heleen jaanta kadibna ciyaaryahankii lambarka 22aad u sitay gobolka Daadmareer uu gool qurux badan leh ka dhaliyay ciyaaryahanada gobolka Togdheer balse weeraro istaba jooga ay soo qaadeen ciyaaryahanka gobolka Togdheer ayaa daqiiqadii 75aad weeraryahanada gobolka Daadmareer ay si fiican isku heleen jaanta kadibna ciyaaryahankii lambarka 22aad u sitay gobolka Daadmareer uu gool qurux badan leh ka dhaliyay ciyaaryahanada gobolka Togdheer balse weeraro istaba jooga ay soo qaadeen ciyaaryahanka gobolka Togdheer